warar lagu kalsoonaa kana naga soo gaaraya magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa sheegaya oo ku saabsan kursiga tirsigiisu yahay eber 24 hob 24 oo ku fadhiyo hadda Cabdulqaadir Carabow in hadda u taageen musharaxiin dhowr ah oo gaaraya ilaa 6 musharax una tartamaya kursigaas ayaa sheegaya in si gaar ah la doonayo in Cabdulqaadir Carabow loogu xiro kursigaas wuxuu garab Cabdulqaadir Carabow ayaa ku fadhiya 40 sano la soo dhaafay kursigan waxaana ay beeshu ka eedeen wax qabad xumo iyo metelad la'aan ay ku eedeen mas'uulkaas ninkaas ayaana ahay ninkii 40 sano ee la soo dhaafay waxyaalo badan oo dhacay oo marnaba ka hadlin waxa kamid ah dhalinyaro lagu laayay deegaanka Gololey oo marnaba ka hadlin dilkii Allah u naxariistay engineer Yariso oo marnaba ka hadlin taas ayaana keentay in gabi ahaanba xildhibaankan oo la sanadkan u tartameen kursigaas lagana tuuro xoog ayaa loogu jiraa iyo dadaal ayaa la galiyaa sida xildhibaankan oo la soo laabo lahayn balse wuxuu garab iyo gaashaan ka heystaa baa la leeyahay ugaaska Ugaas Maxamuud oo ugaaska oo doonaya inuu ugaasku mar kale ku celiyo kursiga waxay leeyihiin ilaaha aan ku kalsoonahay wuxuu garab ka sii heystaa filla Soomaaliya laakiin taas ma caddo taageero weyn oo helay filla Soomaaliya lama ogo balse ma ahayn mowqifkiisu ma caddayn laakiin mucaaradna kuma jirin marka waxay sheegayaan in xildhibaanka iyo ugaasku ay beledweyne ay tageen gobolka ay tageen Jowhar maalmo ka hor waliba safarkaas la qariyo safar qarsoodi ah ay ku tageen in Cali Guudlaawe u sheegeen inuu u baahan yahay ugaasku in kursigiisa loo xiro Cabdulqaadir Carabow oo marka xildhibaan kaleba aan laga sin balse Cali Guudlaawe oo xilligaas safar u ahay baa la yiri Jowhar oo ahay gobolka Hiiraan ayaa ugaaska u sheegay in ugaasku wuxuu soo jeedo oo marnaba diidi karin maadaama ugaasku gacan ku lahaay baa la yiri soo saaridii Cali Guudlaawe xilligii uu madaxweynaha ka naqay gobolkaas oo ugaasku olole xoogan ugu jiro sugana ugaasku gacan saar la leh madaxweyne Farmaajo oo hadda waqtigiisu dhamaaday Cali Guudlaawe wuxuu sheegay inuu marnaba ugaaska ka hormaa karin balse loo baahan yahay haddii kursigaas la xiraa inuu ugaasku Jowhar yimaado oo una sheego isugu iyo ay ku isla jiray sheegan kursigan cid kale loo xirin cid kale ay ku tartami karaan balse xildhibaankii hore uu u baahan yahay loo xiro ayna soo jar u sheegan Cali Guudlaawe wuxuu sheegay inuu ka cabsanayo abo ka dhib qaba in dagaal ka dhaco meesha maadaama qayb kamid ah saraakiil ay u tartamayaan oo galangal ku leeyahay xagga ciidanka beeshana yihiin beel inta badan hubaysan oo laga yaabo in gacan ka hadal sameeyaan taasna dhibaato ku tahay Cali Guudlaawe wuxuu sheegay in gobolka Hiiraan ee beledweyne oo hadda ka haysan wax taageero ah oo gabi ahaanba laga aqoonsaneyn haddii gobolkan ay ka dhacdaan arintaasna oo qadka ka bixi doono balse ugaaska wax walba uu ka diidi kareen haddii ugaasku ku adkeysanayo oo ugaasku soo garabkiisa taagan yahay oo warkaas Cali Guudlaawe afkiisa ka dhawaajo kadibna uu sheego beesha ugaaskiina ayaa sidaas yiri waana arkaysin marka aniga maxaa la fiirsatin waxay sheegayaan wuxuu ugaasku wuxuu ka gaabsay inuu marnaba ogolaan ugaasku inuu kaamirada hor yimaado oo u sheego dadka inuu kursiga Cabdulqaadir Carabow xiro balse uu dhex marayo madaxweynaha Cali Guudlaawe Xuseen wuxuu sheegay Cali Guudlaawe baa la yiri inaan marnaba macquul ahayn haddii uu kaamirada ka dhuumanaysan anigana kaamirada liigu aadi maadaama beeshaas laga yaabo in gacan ka hadal ay sameeyaan sidaasna uu maaragta burbur adag ku dhaco Cali Guudlaawe markii waxa si xoog lagu geeyay gobolka Hiiraan ee beledweyne wuxuuna ka bilaabay doorasho waana safarka waana lagu soo kala tagay ugaasku dib u soo laabtay balse safar dambe ayaa loo haduu soo laabto xildhibaan ka tirsan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo lagu magacaabo xildhibaankan magaciisa lagu sheegay Bolify oo ah xildhibaanka ugu codka iyo cod karsan xildhibaanada ayaa sheegay in marnaba macquul ahayn Cali Guudlaawe haduu yiri kursigaas waa xiran yahay inuu Cali Guudlaawe wixii ka dhaca meeshaas oo mas'uul ka yahay xildhibaanku wuxuu sheegay in marnaba ugaaska haduu warkiisa uu yeelo kursigaas xiro in marnaba wixii ka dhaca uu mas'uul ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen ayaa laga soo xirtay inuu sheegay inuu 3 kursiba awood uu ku xiro oo la lahayn hadda laakiin kuraasta kale uu xiri karo bas 3 kursi ayuu sheegay inuu marnaba xiri karin kursiga hal waa Cabdulqaadir Carabow halna waxa waa wasiir Islow halna Sheekh Sharif ayaa loo rabaa la yiri waliba dagaal culus ayaana xagga iyo abaabul ayaana ka jira
balse kursigan ayaa lagu wadaa in beriyaha soo socda la galo doorashadiisa, balse maxay u dhacdo ayaan la sii sadaali karin. Balse ugaaska ayaa olole xoogan ugu jira sidii kursigan ugu soo celi lahaa Cabdulqaadir Carbow. musharaxiinta u tartamaya qayb kamid ah ayaa hal kamid ah on is aragnay ayaa wuxuu sheegay in haddii ugaasku uu warkaas sheego oo xaqiiqi yahay loo xiro kursiga Cabdulqaadir Carbow, wixii ka dhaca uu mas'uul ka yahay ugaasku la halkaasna ay muhiim noqonayso markaasna dhiig ku daato oo laga yeeli doono. kursiga Cabdulqaadir Carbow waxaa kula tartamaya xildhibaan, waxaa kula tartamaysa musharaxiin xagga miisaan adag leh oo qayb lacag leh, qaybna ciidan yihiin oo saraakiil muhiim yihiin, qaybna lacag leeyihiin ay awoodaan inay lacag adeegsadaan. balse lacagna ma oo ayaa la leeyahay Cabdulqaadir Carbow lacag, laakiin taageero xumada beeshiisa ayaa laga yaabaa in dhulka ku dhifato mas'uulkan, maadaama 4 sano oo lagu qasaaray xildhibaankaas oo marnaba oo beesha uu matalo ay sagxadda jiiftay. marka waxaan xaqiijiyay qayb kamid ah ergada iyo mas'uuliin ka tirsan oo ka agdhow xagga Jowhar iyo Muqdisho. xogtan Funguuni Media iskama timin, laakiin wax uga muhiim ah oo xaqiiq ah marka wixii la soo kordhay wana socdo insha Allah. Feedka share follow si share galay mahadsanidin saaxiibadayna qaaliga.